maanta barnaamijkan idin soo jeedinayna waxaan ka hadli doonaa riyada hamiga qof kasta Soomaaliya waxay qusaysaa qof kasta Soomaaliya meel kasta ku nooshahay Yurub ku noolow Afrika ku noolow Asia ku noolow America ku noolow wherever you meel kasta joogto way ku qusaysaa waxaan leeyahay riyadaadu waxay tahay ma garan karo sida uu niyadsan tahay ma garan karo say haadu tahay ma garan karo say kugu adag tahay laakiin waxaan ku leeyahay meel kasta joogto wax kasta sameynayso waad sameyn kartaa waad gaari kartaa hamigaaga dad badan waxay ku sheegayaan inay adag tahay inay sameyn karin in dhibaatooyin badan ka hortaagan yihiin laakiin waxaan ku leeyahay cirka waad gaari kartaa meel kasta waad gaari kartaa wax kasta waad sameyn kartaa waad gaari kartaa riyadaada hadda ma aragtaa actorka weyn wax badan ayaa waxa ku dhacay inuu gaari waayo riyadiisi wax badan waxa ku dhacay inuu gaari waayay wuxuu doonayay maanta wuxuu yahay successful guul buu gaaray actor weyn Mareykanka laga yaqaano William Smith laakiin imisa jeer muuseexan jirin habeen uu soo jeedi jiray maalintuu shaqayn jiray si uu gaaro oo uu noqdo one of the best actors in America waxaan ku leeyahay saasoo kale waad samayn kartaa eeg dadka badan ee successful guul gaaray abal ninka sameeyay Stephen Jobs intee jeer ku celceliyay inuu sameeyo telefoonkaas companygaas hadda wax barta doonayso hadda business doonayso hadda doonayso inaad sheekh noqoto caalina hadda doonayso inaad quraanka xafido hadda doonayso inaad noqoto multi-billionaire wax walba waad samayn kartaa waxaan ku leeyahay hurdada ka kac isku day xagla laaban xoolo kuma yimaadaan isku day waad samayn kartaa riyadaadu mar labaad dhab bay noqon kartaa mar saddexaad dhab bay noqon kartaa mar afraad dhab bay noqon kartaa waad gaari kartaa ma garanaysaa cilada ku haysata adiga waad daawanaysaa waxa weeye waad maqlaysaa meel kasta aad caalamka kaga sugan tahay waad la socotaa problemkaaga wuxuu yahay anigu ma garanayo meesha caalamka ka joogtid ma garanayo waxa tahay ma garanayo waxa doonaysid ma garanayo waxa allaale waxaad u baahan tahay inaad ka gaadhid noloshaada ma garanaysaa waxaad sameynaysid inaad ku guulaysid marka doonaysid inaad guulaysid waa inaad dareenta xanuunka ay leedahay guushu marka hore xanuun bay leedahay xanuunkeeda waa inaad dareenta waa inaad u dagaalantaa waa inaad habeenkii u seexan weyda waa inaad cunada wax yar cuntaa waa inaad waxa weeye aad dadka ka go'daa si aad guushaada u gaadhid waad samayn kartaa ninkan aad u jeedid hadeerto imisa jeer ayuu failure noqday imisa jeer buu ku guul daraystay waxa uu doonayay sportsku ku guul daraystay musicaanku ku guul daraystay hadeerna waxa uu ku guulaystay inuu noqdo one of the best actors in America wuxuu noqday ninka ugu khatarsan America waka hadeer waxa uu fadhiyaa maalintii waxa soo gala akoonkiisa billions of dollars waad samayn kartaa ha ka walaacin riyadaada marnaba ha beenayn ha maqlin dadka nacasyada ee riyadaada hoos u dhigaya ha dhageysan dadka faquuqaya ee ku faquuqaya ee ka sheegaya ciladaha khaldan waana tamaysaa waxa la leeyahay waxa doonaysid come on guys you can do it wala tamaysaa This is what I believe, and I'm willing to die. Period. No matter how bad it is, or how bad it gets, I'm going to make it. I want to represent an idea. I want to represent possibilities. You have to go through life being a victim. Yourself. waxaan rabaa inaan ka dhaadhiciyo inaad naftaada aaminto If no one else sees it for me, ifan qof kale haddaanu qof kale aaminsanin fikirkaas waxaan doonayaa inaad aaminto naftaada And I'm willing to die. waxaan doonayaa inaad fikirkaaga u dhimato no matter how bad it is, say u xun tahay iskiilow it gets, maybe way adkaan kartaa going to make it. bad waad samayn kartaa Represent an idea. I want to represent
waad samayn kartaa wax walba hadda waxaan doonayaa inaan tusaalayaal fiican ku tuso imse qofaad taqaanaa adduunka guul gaaray imse ma garan karo qofka role modelkaagu yahay ma garan karo qofka aad raaci doonto laakiin imse qofaad taqaanaa obama eeg maanta halku joogo bill clinton sheekh maxamed cabdi umar sheekh shariif sheekh axmed imse qofaad taqaanaa oo siiro ka soo bilaabay maantana guul gaadhay qarnigii 20 ninka ugu aqoonta badan Albert Einstein imtixaankii jaamacadda wuu ku dhacay haddana wuu ku ceshay wuxuu noqday ninka ugu aqoonta badan 20th century maanta adduunka oo dhan baa laga tixgeliyaa fikirkiisa iyo sayniska ku soo kordhiyay adduunka waad ka hadli kartaa ilaa haddeer waad ku noqon kartaa waad samayn kartaa riyadaadii waad suurtagal jaamacadda waad ka qalin kartaa business dib baad samayn kartaa dib baad reer fiican u abuuri kartaa dib baad iskuulka ugu noqon kartaa dib baad quraanka wax xafidi kartaa dib baad wax badan samayn kartaa laakiin noloshaadu micno weyn bay leedahay there is something inside you are powerful qof kasta waad ka awood badan tahay wax kasta waad samayn kartaa sky is the limit waad samayn kartaa waad samayn kartaa waad samayn kartaa waad gaari kartaa riyadaada waad gaari kartaa waan ku leeyahay harwaysan kuwa ku diiday wax walba waad samayn kartaa You can live your dream. waad